qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay afar dhalinyaro oo walaalo ah oo safar wada galay kadibna meel waxbarasho ka bilaabay kadibna qofba meel gaaray qofna wuu baasay qofna وأركي دونا مركا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا له درس جعل مال ودون كاتك جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئيو قصة عصر ما دام إيتها قصة أقدم بيس وحنا كاعد سنة إن فائدة دي سوق قرتب ولا له هاجاني وسي قد بيست خير الله كسيه وحان كل مدونا رمضان ككدي إن شاء الله تعالى. walaalayaal qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay afar dhalinyaro oo walaalo ah oo baxeen israaceen kadibna meel waxbarasho ka bilaabeen macallin fiican ay heleen oo wax walba baray wax walba ay u baahan yihiin wuu u sheegay intaa kaliya ma ahane wuxuu u sheegay maalinta imtixaanka la qaadanayo inta saacadood uu soconayo iyo waxyaalaha lagu qaadanayo qof walba markii loo sheegay kadib waxaa la gaaray maalintii imtixaanka macallinkii ardaydu isugu wada yeeray oo wuxuu ku yiri waxaa la gaaray waqtigii imtixaanka qof walba waraqadaada iyo qalinkaaga diyaarso imtixaanka wuxuu soconaa 30 daqiiqo kaliya hal sakan idinkuma daraayay maalintii 30 daqiiqo ay dhamaato warqada waa idinka qaada qof walbo ma maqashay hadalkaas haa waa wada maqanay macallinkii wuxuu amray in ay bilaabato imtixaankii markuu bilowday afartii walaalo mid ka mid ah wuxuu go'aansaday inuu su'aal walba ka jawaabo 20 daqiiqo ugu horeyso warqadii dhameed wuu qabtay 20 daqiiqo ugu horeyso ayuu ka jawaabay 10 daqiiqo ugu dambeysay wuxuu gaaray marka inuu imtixaankii review gareeyo wuxuu dhiibay asigoo faraxsan jawaabuhu bixiyay walaalkii labaadne hore ka muusan bilaabin su'aalaha oo wax kale isku mashquuliyay markii wax yar dhiman tahay buu arkay asoo meel xun uu marayso walaalkiisa kala wuxuu ku yiri marka isku xishooniyahow ka jawaab ma waxaa jeceshahay sidii hebel iyo hebel oo kale inuu noqdaan boobsi imtixaanka dhaqso boobsi walaalkiisa ayaa aad u tashjiiciyay imtixaanaadkii ka jawaabay wuu review gareeyay asigoo faraxsan ayuu asigana warqadii dhiibay laakiin waqtigii loogu talagalay gudaheeda walaalkii saddexaad asigana wax kale isku mashquuliyay maruu hurdo iyo maruu warqad qalin raadsaday iyo maruu qalin qoritaankiisa isku mashquuliyo almuhim asigana asoo wax fiican ka jawaabin hal mise laba ka jawaabay ayuu waqtigii ka dhacay macallinkii ayaa yimid wuxuu yiri waqtiyan u baahanahay wuxuu yiri waqti meesha ma yaalo wuu bariyay waqtiyan u baahanahay wuxuu yiri ma xasuusataa inaan ku dhaw 30 daqiiqo haysataa ha waqti dambe aan kugu daray haba yaraatay ma jirto warqadii sidii ayaa laga qaaday asigoo xanaagsan ama asigoo walwalsan dhahay waqtiyan u baahanay fadlan igu dar walaalkii afaraadne hal su'aal ka muusan jawaabin لأن مركو خربا كموسن سو تلقين إنه امتحان قاطو وحكلو اسكو مشغولي كموسو قيب قلين وحيالا كلو اسكو مشغولي ورقدي أسيقو وحبكو قرين أي كدماتي كيسة دحال على قلوبة كاش الله يسنى وحودها وقتي اللي ودرو كان دازين كير لسو بسكا هاي وحوير ورقدين هدارة بتنقاتي وحبي إيقا قلين سيدي أيا أفرتي ورقضوت lagu qaaday macallinkii oo ku qaaday macallinkii imtixaanka markuu qaaday oo soo gareeyay afartii nin ayuu u yeeray kii koobaad wuxuu yiri waad guuleysatay oo waad najaxday wiilcada buundadii ugu fiicneed ayaa ku guuleysatay kii labaad asigana waxaa la yiri adigana waa guuleysatay kii labaad kii koobaad walaalkiisa ku dhaw wuxuu aada u mahadsantahay adiga caawilaheen maana najaxin wax kale ku mashquulsana kii saddexaad waxaa lagu yiri adiga waa dhacday laakiin hal jaanis kala leedahay kii afaraad waxaa lagu yiri waa ka xumahay go'aan ayaa isoo gaaray oo inaad iskuul dambe aadan gelin haddana ay kugu dambayso waana kaaga dhamaatay maca salaama walaalayaal saa u jeedaan afartaanin walaalaha midkii koobaad wuu guuleystay oo maasha Allah darajo fiican oo keenay kii labaadna asigana wuu baasay laakiin waxa caawiyay kan koobaad
kii saddexaadne wuu dhacay laakiin jaanis kale la siiyey, kii afaraadne jaanis la-aan ayaa ku dhacday. dadkana walaalayaal waa saas oo kalo bisha ramadaan markii la gaaro afartaas mid ka mid ayay noqdaan. qisadan walaa soo dhaweeyey macnaha bisha ramadaan waa ognahay oo diinteena way noo sheegtay 30 maalmood inay tahay, wixii la samaynayna way noo caddahay. laakiin anagoo og 30 maalmood inay tahay oo la samaynayo, waxa la samaynayna ogna 1400 sano ka hor noola sheegay, waalidiinteena na soo bareen, culummada intaas ay sheegayeen. dadkii ma wada soomaan oo ma ku wada liibaanaan, maya dadka marka waxay noqdaan afartan qeyb oo aan kasoo sheekaynay. hadda walaalayaal su-aalaan rabaa inaan idiin weydiiyo, adiga kee rabtaa inaad ka mid noqoto? kan koobaad miyaa rabtaa inaad ka mid noqoto oo bisha ramadaan maalintii bilaabato soomo ilaa maalinta ka dhammaato oo ka mid noqon doono biidni illaah dadka guulaystay? miyaa ka mid noqon doontaa? mise kan u dambeeyey oo lagu yidhaaha sanadkana kugu dambayso, sanad kale ma gaaraysid, meeshana nafta ay kaga bixayso? kulligiina maanan ogi sanadka soo socda inaan gaaraynay in kalo. meeqaa ramadaanka hore nala soontay laakiin ramadaankan aan joogin? ma isweydiisay meeqa qofooda sanadka hore kula afurtay sanadkan kaa maqan? ama qaraaba ha noqdaan, ama asxaab ha noqdaan, ama dad la yaqaano ha noqdaan, way tira badan yihiin. hadduu ilaahay jaanis ku siiyey bisha ramadaan inaa gaartay, walaalow ka faa'iidayso oo waxaad ka mid noqotaa dadka ku guulaysto oo ilaahay subxaanahu watacaala naarta ugu xoreeyo. habeen walba ilahay dadu naarta. bisha ramadaan haddii lagugu dambi dhaaf waayo, goormaa lagu dambi dhaafaa? bisha ramadaan haddii naarta lagaa xorey waayo, goormaa lagaa xoreynaa? bisha ramadaan haddii janno laguu qori waayo, goormaa laguu qoraa? bisha ramadaan nabiga sala allahu calayhi wasalam axaadiid badan oo noo sheegay dembi dhaafinayd habeen walba ilaah dadu naarta ka xoreeya. man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi. man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi. man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi. yaa allah, intaas haddaa heli weysay waxaa kugu dhacaysa marka xadiidka nebiga sal alla alay wasalam uu dhahay, ilaahay naarta ha ku fogeeyo qofii bil ramadaan gaaro oo loo dembi dhaaf waaye. su-aasha isweydiinaysid, ma waxaad rabtaa inaad ka mid noqotid dadka loo dembi dhaafo, mise dadka naarta ku fogeeyo lagu fogeeyo? jawaabtaada waxay tahay waxaan jeclahay dad inaan ka mid noqo dadka loo dembi dhaafo. haddaba bisha ramadaan ka faa'iidayso, kan soo socdo inaan gaarayno ma ogini. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ilaahay dartiisa idin jeclahay. bisha ramadaan saa ogtihiin qisas ma jirayso. barnaamijka ramadaankan ka sheekeyn doona hadduu ilaah yiraahdo, waa inuu ramadaanka kadib bishi shawaal insha allah taala. ilaahay dartiisa idin jeclahay. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون